أيه بسم الله وبنا نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه waxaan nasiib darro ah oo qalbigayga gilgishay dhibka ka dhacay jidbaale inta dhimatay waxaan leenahay inna ilaahi raaji'uun samir iyo iimaan aad bay noo dhibaysaa dhibka soo noqnoqonaya insha Allah ta'ala halkan ergadii maraysay ee nabadaynta waxa ka soo bixi doona saddex isim garaad jaamac garaad Ismaaciil ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi iyo garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo naga soo guurayn doona inta yada kalena xaajadii halkan taalay baanu dhameystirkeeda u sii joogi doonaa waxaanu ku ballanay ceegaag inaanu isugu nimaadno waxaanu labada reer ee dhibku walaalaha ah ee dhibku dhexmaray leenahay dhibku inta ayuusan dhaafin wafdigan annagana matalay ee soo kicimay hal loo dhaga nugulaado waxaanu ku baaqaynaa nabad degdeg ah oo aan shuruud lahayn oo la isku soo gaaro ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan dhibka inta dhaafin intii dhimatayna Allah u naxariisto inta dhaawacantayna Allah u boogadhayo waxaanu faraynaa labada dhinac inay xabadaas ay joogsato si aan shuruud lahayn ay ku joogsato insha Allah ta'ala garaad Cabdisaaq garaad Soofi raaji'uun shilkaas hadda la soo sheegay ee jidbaale ka dhacay aad iyo aad baan uga xunnahay runtii waxaan ku tilmaami karnaa nasiib darro waxay niyadtaradeenna waxay noqotay wiilasheenna inay qoryo la ordaan oo isdilaan wax garadkeennana daba ordo marka arrinta aad baan uga xunnahay annaka waxaan samayn karnaa waa inaan talino isimada xagga aadaya iyo annaka hadda hawshan u hadhaynaba waxaa la samayn karaa inaanu talino weeye taladaan ku talinaynaa waxa weeye ilaahay inaad ka cabsataan xabadda inaad joojisaan inaydaan isdilin inaydaan gabdhihiina kaga oohin ilaahay ka cabsado xabadda joojiya wax khasaare intaa hadda dhacday haynoo ahaado dadka idiin imanaya iyo dadka idinla joogala maqla waxaan leenahay arrintaasi waa nasiib darro waxaan khasaarahayn ka heli maysaan waxaan cadaab ahayn ka heli maysaan xabadda inaga joojiya dadka kale ee hadda bad qabana waxaan leenahay maalinba labadii reer ee dadka ugu fiicnaa ee loogu kuunyeeyayba waxa dhex marayaane ku baraarugo ilaahay ka cabsada xabaddan hala joojiyo aad iyo aad baa mahadsantahay raaji'uun aad iyo aad baan uga xunnahay warka aanu ka maqlay jidbaale labada reer ee walaalaha ee isku dilay wixii dhintay ilaahay u naxariisto wixii dhaawacmeena ilaahay u bogadhayo waxaanu baaq dheer ugu diraynaa labada dhinacba inay dagaalka intaa ku ekaysiiyaan isxakameeyaan ilaahay ka yaabaan labada dhinacba waxa ka dhintay isku dhinac weeye isku dad weeye walaalo weeye dhibaato deegaankeenna haysata weeye waxaanu ku jirnaa taas oo kale waa isa soo qaybinay hadda sida garaadadu idiin sheegeen saddex isin baa soo baxaya dagaalka hala joojo ilaahina laga yaabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أرنت نلو شيغي شلك ساكا دعي آديات بانوغا نحني waxaanu soo diraynaa baaq xabadda lagu joojiyo hala joojiyo xabadda burmadka iyo reer hebel baa halkeer isku haysta yaa idinka reebay oo wakhtigeenniina lumiyey hala joojiyo burmadka hala joojiyo xabadda hala joojiyo wixii dhintayna allaha u naxariisto wixii caafimaad qaba wixii dhaawacana allaha u sahlo aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaa shilka ah ee dhacday intaasaanu soo jeedinaynaa cidda waa soo diray cidda kalena waa ka daba imanaysaa waa iska daba imanaynaa insha allahu tacaala waxaanu idiin rajaynaynaa in aad joojisaan xabadda bismillaahi raxmaani raxiim inna lilaahi wa innaa raajicuun halkan waxaanu runtii baaq nabadeed uga diraynaa oo runtii murigo leh annagoo ku jirnay xaajadii aad ogeydeen ee hagar iyo hayaag
saakana Itoobiya xuduudeeda ka soo galay mar dhaweyd waxaanu maqalay in haddana nugaal la isku dilo jid baalayo xudun inta u dhaxaysa laba beelood oo walaalahay haddana isku qabsadeen rag badan ku dhinteen ragna ku dhaawacmeen oo waliba Siyaad Maxamuud oo wada dhashay waxaanu idin leenahay horta annagu haddeeraanu soo galnay dhulbahantana maalin walba laba reer oo isdilayay inaanu ku dhex wareegnaa yana ceeb bay ku tahay anana wax bay dhibaato nagu tahay haddeerna waanu baxaynaa waanu tegaynaa ma nasanayno anigiyo garaad Cabdisalaan iyo ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahi baabaxayna oo naloo qorsheeyay iyo cuqaal salaadiinta inta kalena way soo baxayaan markaanu hawshan ceegaag iyagu ay axadda ay dhamaato laakiin anagu waa ka sii horeeynaa xabadda joojiyaanu idin leenahay joojiya nin dambe yaan xabad lagu ridin nabadgelyo hal la qaato anana waanu idin imaanaa saacadaha soo socda insha Allah haddaanu nabadna wadin la joognaa war hal la joojiyo Siyaad Maxamuud xabadda hal la joojiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن لقبا اسمada iga horeeyay baan la qabaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kuma faraxsanin sida wax u socdaan aad iyo aadna waa uga xunnahay haddana waanu dhaqaaqaynaa socod baanu nahay mid kale waan ka soo galay hal ismaqlo xabada hal la joojiyo waxba intari mayso goorad hiisaan baa la heshiinayaa dad uu dhintay in bad kordhinaysan iska daay xabada joojiyo aqligu ha taliyo joojiya saasaan dilanahay waan idin soo ducaynaa ilaahay inuu beerkeena bacad isku mariyo dhibaatada inuu la joojiyo ilaahay saasaan ka baryanaa ilaahay hayna badbaadiyo